Shirkii labaad ee Madasha Ganacsiga Afrika iyo Pakistan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliyeed ee u horkacaya u qaybsanaha ganacsiga iyo warshadaha ee safaaradda Soomaaliyeed mudane Qadar Deen Guuleed. Shirkan oo ay si wadajir ah u gudoominayeen agaasimaha wasaaradda ganacsiga dalka Pakistan iyo sihayaha gudoomiyaha safiirada Afrika ee jooga dalka Pakistan isla markaana ah safiirka Kenya u qaybsanaha ganacsiga iyo warshadaha ee safaaradda Soomaaliyeed ee Pakistan mudane Qadar Deen Guuleed ayaa ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoo ka warbixiyay xaaladda dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya iyo sida ay diyaar ugu tahay inay hormuud ka noqoto mashaariicda ay Pakistan doonayso inay ka fuliso suuqyada waaweyn ee qaaradda Afrika. Policy initiative. Let me first begin by extending a warm welcome to the distinguished delegation from Socda Chamber of Commerce and Ministry of Commerce. We are honored by your presence and see it as a new chapter between Africa-Pakistan partnership as we strive to achieve the transformation of our nation to a middle-income country in a responsible partnership. I know we can. After decades of anarchy in my country and lawlessness, Somalia is now back to international platforms, engaging its partners and promoting trade, commerce and industry growth. We want to state that Somali Parliament has passed the Foreign Investment Law. The Ministry of Commerce and Industry in Somalia is also committed to enhance trade facilitation by easing the issuance of license to local and foreign traders. And I would like to share this good news to Madam Maria Kazi. There was a new reform that came out from the Ministry of Commerce. They said we will put these 16 nations top priority, and Pakistan became second on the list after Turkey. We at the embassy are also committed to welcome Pakistani investors in reviving the industrial sector, in particular small and medium industries. We are requesting from the government and Socda chambers of commerce to play major role in the revival of Somalia's oil factories. Somalia applied for WTO membership and is keen to develop partnership and economic relations with international organizations. As such, Somalia is now beneficiary of enhanced integrated framework program. qaybsanaha ganacsiga ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan ayaa xusay iyadoo laga faa'iideysanayo sharciga maalgashiga shisheeye oo ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu dalka diyaar u yahay maalgashi iyo xiriir ganacsi oo heer caalami ah. Shirkii labaad ee Madasha Ganacsiga Afrika iyo Pakistan ayaa ku soo idlaaday jawi aad u wanaagsan. Cabdi Fitaax Ali Shirwac, telefishinka caalamiga Home Cable.